xiisadda u dhaxaysa mareykanka iyo iiraan oo saameyn ku yeelatay qiimaha shidaalka afrika. xiisadda u dhaxaysa mareykanka iyo dawladda iiraan ayaa saameyn ku yeelatay sare u kaca qiimaha shidaalka ee qaaradda afrika. sare u kacan baahsan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo shidaalka, gaar ahaan dalalka ku yaalla bariga afrika. arrintan ayaa waxaa loo aanaynayaa xurgufta sii kordhaysa ee u dhaxaysa mareykanka iyo dawladda iiraan. laba markab oo laga leeyahay sacuudiga iyo imaaraadka carabta ayaa lagu weeraray sida la sheegay meel u dhow xeebaha iiraan iyo imaaraadka, taas oo iyadana qayb ka ah arrintan muranka weyn sii dhalisay. dawladda maraykanka ayaa ku eedaysay falkan in ay ka dambaysay xukuumadda islaamiga ah ee iiraan. xukuumadda washington ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay dhoofinta shidaalka waddankaasi iiraan, waxaana ay ku hanjabtay dalkii la mucaamila in ay mutaysan doonaan xayiraad dhaqaale. kaalimaha lagu iibiye shidaalka ee dalalka bariga afrika ayaa iyagu sare u qaaday qiimaha lagu iibiye shidaalka, iyadoo cabasho ay ka muujiyeen dadka shacabka ah.